Assalaamu calaykum. Waa muuqaal cusub oo aynu ku qaadaa dhigi doono mowduuc aad u muhiim ah oo aynu cunwaan uga dhignay geesinimada. Geesinimada waxaa lagu qeexaa in ay tahay in uu qofku ku dhiirrado samaynta shay iyada oo ay jirto dhibaato, in uu carabka ku ballaadhiyo qofku waxa uu aaminsan yahay in uu saxan yahay u arko, iyada oo ay jirto cagajuglayn badani, in uu ku dhaqaaqo waxa ay naftiisu dhibsanayso seedanteeda ah, iyo in aanu ka cabsoon sida ay wax noqon doonaan. Waxaa isweydiin mudan farqiga u dhexeeya geesinimada iyo dhiirranaanta ama qalqaalinimada. Labadan dhaqan waxna waa ay wadaagaan, wax kalena waa ay ku kala duwan yihiin. Waxa ay wadaagaan in uu mid kastaaba yahay go'aan ay naftu qaadanayso xilli ay khatari jirto, halka ay ku kala duwan yihiin in ay geesinimadu tahay xal wax badan laga fekeray oo uu qofku u arkay in ay sidani xal tahay. Waana halka uu qoraagii Mareykanka ahaa ee Ernest Miller yidhi, geesinimadu waa fariidnimada uu qofku sameeyo marka uu cadaadis dareemo ama la saaro. Waxaa sidaa ka duwan dhiirranaanta recklessness, oo iyadu ah in uu qofku sameeyo fal aanu ka fekerin sida uu noqon doono iyo midhaha uu dhali doono, sida in uu nin askari ahi rasaas ku furo goob aanu amar u haysanin ama ay arrintaasi asxaabtiisa khatar ku keenayso. Sidaa aawadeed, geesinimaduna waa dhaqan togan oo fiican, dhiirranaantuna waa dhaqan taban oo aan fiicnayn. Astaamaha geesiga. Qofka geesiga ahi waxa uu leeyahay astaamo badan, kuwaas oo ay ka mid yihiin: 1. Kama cabsoodo dhihista maya marka uu diidayo arrin, haddii ay doonto yaanay raali gelin dadka hareerihiisa ku noole. 2. In uu aragtida iyo dareenka la wadaago cidda ay khusayso, isaga oo aan asxaab iyo aqribatoona ka cabsanaynin. 3. In uu awood u leeyahay ka gudbidda shalay iyo wixii tegay, iyo sidoo kale iska dhaafidda waxyaabaha qofka fadhiisiya. 4. Waxa uu ku socdaa had iyo goor hadafyadiisa iyo yoolalka uu dejistay, haba ka hor yimaadaan carinooyin fara badaniye. 5. Waxa uu dhabarka u ritaa mas-uuliyadda falalka uu samaynayo, wax isaga ka dhacayna dhabarka uma saaro cid kale, oo ciidda iskuma qariyo. Faa'iidooyinka geesinimada iyo dheefaheeda. Geesinimadu waxa ay leedahay dheefo fara badan, kuwaas oo ay ka mid tahay: 1. In qofka geesiga ah ay laabtiisu ku degan tahay go'aan kasta oo uu qaadanayo, halka qofka aan geesiga ahayn uu ka warwarayo go'aanada uu qaadanayo, marka uu go'aankii qaatana aanu ku niyad samayn. 2. Geesinimadu waa meesha laga helo waxyaabahan soo socda: deeqsinimada, dulqaadka iyo degdegsiimo la'aanta, sugnaanta iyo samirka, u dulqaadashada dhibka, iyo hanweynida. 3. Sarreynta nafeed iyo mid anshaxeedba. Qofka geesiga ahi waa qof ku sifaysan sarreyn, aanay naftiisu hawaysan waxyaabaha hooseeya ee meel sare ayaa uu inta badan higsadaa, sidoo kalena uu dugsadaa. 4. Ilaahay oo laga fisho wanaag iyo badhaadhe. Qofka geesiga ahi waxa uu inta badan Alle ka fishaa wanaag, haddii uu yahay qof muslim ah oo Alle subxaanahu wa tacaala rumaysan. Ugu dambayn, sifada iyo sumadda geesinimadu ma aha dhaqan loo dhasho oo keli ah, ee waa dhaqan la beeri karo oo la baran karo. Inta aynu ku kulmi doono muuqaal kale oo xiiso badan, waa Sakariya Haaruni oo idinkaga tegaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.